dadweynaha ku dhaqan xaafadda October oo ah xaafadda ugu weyn magaalada Burco ayaa saliig xooggan ka muujiyay koror lagu sameeyay lacagta lagu raaco basaska xaafaddaasi. maraan wax ka weydiinay dadweynaha xaafaddaasi ayaa sheegay inaanay raalli ka ahayn isla markaana cambaarayn dusha kaga tuuray qaar ka mid ah basaska xaafadda. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida كبر علينا أنا وهدان هاي الشعب كل يوم أنا نقول عليك أنا كنا شعب خرب بالك شعب كباية تمسكين تحوي صار لقول شايفة لقول تحدري فرقم حد بس كلامه كل هذه تلو تاي تفتح هذا هديك إسكت راعينا بس غير غير مرة عليك أنا يتكتا sidoo kale wadayaasha gaadiidka ayaa ku kala aragti duwan lacagtan lagu kordhiyay dadweynaha xaafaddaasi. lacagta la kordhiyay waxaan u arkaa wadada lagu kordhiyay ayuunba qalad mooyaane uma arko wax qalad oo in la kordhiyo dadkeena nasteexa u tahay oo u wanaagsan tahay laakiin wadada loo maray baa khaldan sax ogeysiin la'aan iyadoo aan la ogeysiin arrimaha bulshada iyadoo aan la ogeysiin dadweynaha ayay arrintan talaabadan la qaaday baa dadweynuhu iska qaadi karayaan oo karaya ku shilin baan ku qaadanaa rakaabka waa kuna waa khalad waxay wadaan صورة فاتر معها. dhanka kale waxaa isaguna ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan isagoo oo sheegay inaanay aqbali doonin in dadka shacabka laga qaado lacag ka badan tii hore looga qaadi jiray. waxaan runtii halkan ugu sheegayaa basasleyda gaadiidka basasleyda Burco baabuurta basaska waaweyn iyo nooca yaryar dhexe labada waxaan sheegayaa in ay shalayto iyaga oon wax waran la soo socodsiin nagala tashan ay mar qura dadweynihii ku kordhiyeen qiimihii gaadiidka oo halkii qofka rakaabka laga qaadi jiray ku qashirin ay 500 ka dhigaan taasoo aad iyo aad dadkii u damaqday halkan waan baan ku kala qaadanay basasleyda waan ka wada hadalay basku markuu ومواد لفتيس مركا وقيمة بالشدال هي قيمة أشعار أو كلا أي كوردو إسكما كوردين كرو أو سجو موادنا يسوي أنا في سدي دولة إيمانين إسكما كوردين كرو قيمة ودويني كما كوردين كرو هو تعد مع العلم عاشور.